xaaladeedu waxay u ekayd in gabadhani lugaha laga hayay oo hoos loo jiidayay ayadna ay gacmaha kor u taagaysay oo leedahay ibadbaadiya wax aan la garanayna oo lugaha xagga hoose intuu ka qabtay uu biyaha hoos ugu riixayay oo kale. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبنا قيمة بدنا كحرن channel كده دوينها يوتيوب كوسو هذا مقال كنا مانتا كوسو هذا مقال كلوحي صالح بالكورن أظن نلوش هذا سكيرياني إسكا مشغول سنة دهتنا مالين ما كم إذا عدكو أنستيد إن الجوي سود جيستيد حسنا حتى ماشي هذا الحيس تكتير الجو كوسو دجيسو هذه المحاجو أي سبب النقطة ما أنت إن هالكن صوف فديستون قصة هذا كورمه إلى هاي كمردقة وعدنا عاسية هذا عجائب بدن وليبنا meeshani ay gabadhaneen maanta barnaamijkeena kaga hadli doono ay dalxiiska u tagtay ayaa ah meel markii horeba dhacdooyin la yaab leh lagu sii xamin jiray. haddaba saaxiibayaal muuqaalkeena maanta waxaanu kaga hadli doonaa qisada gabadhaasi iyo meeshii ay dalxiiska u tagtay iyo meeshaasi oo ahayd meel markeedii horeba qisooyin la yaab leh laga soo warin jiray ayaanu maanta muuqaalkan gudihiisa kaga hadli doonaa. balse intaynan muuqaalkani u guda gelin oo inaan hore ugu sii socon horta haddii aad ka mid ahayd saaxiibadii hore ee ku xidhnaa jalka dadweynaha balse waqtigiina kala geeyay oo hadda soo laabtay welcome back baan ku leenahay isku soo noqod wanaagsan minikaag leewaay unuki leewaay kursigii midabaan ku sidul fadhiya. haddii aad ka cusub tahayna waxaanu kaa codsanaynaa aniga iyo dadweynuhuba inaad channelkani subscribe aad saartid. waxaanu saaranahay aynu u sii gurguureynaynaa dhanka iyo 600,000. come on guys we can do waan samayn karraa 1 milyan baynu ku dhufan karraa markaad tii subscribe tahayd sidaas ugu daadiya iminkii haatanna toos aynu gudgallo muuqaalkeena maanta. dabcan dee muuqaalkan ayaa like tiirayda ka hilmaamin كسر ولا جنون دوينها سبسكرايب صار عندنا waxay noo tahay galin saas ku dhintay trogi ya soo dhawaada saaxiibayaal mar kale. gabadhani aynu maanta muuqaalkan gudihiisa kaga hadli doono ayaa waxa lagu magacaabaa Naya Rivera. waxay ahayd gabadh jila ah siiba waxay caan ku noqotay filimaanta musalsalka taxanaha ah. Keep your paws off my man. Clear? Who's your man? You got yourself knocked up again, slut. waxaanay gabadhani ku caan tahay magaca Santana Lopez. sababta ay magacani labaad ay caanka ugu noqotay ayaa waxa uu ahaa filim taxane ah oo lagu magacaabo Glee ay gabadhani caan ku noqotay ayaa magacaasi lagu yeeri jiray yani magacaasi ay wadatay sidii filimka gudihiisa loogu hayay Santana Lopez bay caadi Santana Lopez ugu dhigtay. dadka filmaanta musalsalka daawada ayaa garanaya qof aanay weligood maqal oo markii ugu horeysay filimkiisa daawanayaan ayaa magaca waqtigaasi filimka gudihiisa loogu yeeriyo ayaa caadi ugu yeerayaan oo waxay moodayaan inuu magacaasi kiisa yahay sida salahan Maria Clara mise Karala Maria Clara hadal baday galay markaan Maria Clara iyo hawlaas maxay galay garanay imka magac kale laakiin leedahay laakiin magac aan ku noqday magacaas waa hadii aan garanay gabka waxba isku mashquulinayna hore ugu socono. gabadhan marka hadaba magacaasi ay caan ku ahayd marka intaas kadib gabadhan caan ayay noqotayba oo xataa baraheeda bulshada malaayiin qof ayaa u falo gareeyay. taasi micnaheedu tahay yani waa qof la yaqaanayo caan ahayd. sababtoo ah filimkan musalsalka waxa filim aad u xiiso badan sidoo kalena siisano aad u badan ayuu lahaa marka dadkuna aad ay uga heleen laakiin sheekadeenu filimka ma saarnay waxa saaran tahay gabadhaasi laftirkeeda iyo waxa ku dhacay waran isfahnay soo maaha. gabadhani ayaa hadaba waxay dhalatay sanad markay ahayd 1987. waxay ka soo jeedaa gabadhan asal ahaan oo ku dhalatay jasiirad lagu magacaabo Puerto Rico oo raacsan dalweynaha Mareykanka. hadaba yaraanteedii gabadhan waxay soo barbaartay iyadoo aad u jecel dhinaca fanka siiba jilliinka. hadaba gabadhan markay go'aan ka qaadatay inay fanka toos ugu biirto siiba dhinaca jilliinka muddo sanada markay ku yar fooganayd ugu dambeyn waxay chance u heshay inay ka qayb noqoto taxanaha ay ku caan baxday ee Glee. runtii waxaana uu noqday filimkaasi filim ay ka samayso magac iyo maal yani sidaas ay kaga dhabaysay qayb kamid ah riyooyinkeedii ugu muhiimsanaa. haddaba sanadu markay ahayd 2014 ayaa inay wada socdeen ay siqaaneen ay saaxiib ahaayeen oo dhinaca aflaanta meelaha isku barteen oo lagu magacaabo Ryan Dorsey isguursadeen 2014 ayay ninkaasi isguursadeen. waxaanay xaas iyo xaasad xaaji iyo xaajiyad xaaj bay tageen what the hell niniyan naagtiis xaaf Soomaaliga wada foolxuma ka dhigahay lamaane reer leh waxay ahaayeen ama base waxaynu oran karaa reerkoodaasi waxa uu dhisnaa muddo 5 sano ah. 5 sano kadib way isku fahmi waayeen waxa dhaadeen abtiyo intaasi ka badan waxaynu waa gacmo daalis xamaanta ay kala kurteen way kala tageen. hadaba muddada 5 sano ay wada joogeen Ilaahay waxa uu isku siiyay wiil yar. wiilkaasi ay ugu bixisay Jose يهود بوجي هبا خوسه هذا أنت سوي حكي دنبيه قبل أيضا هيد وحي أود صارتي ويل كذا يرى أنتوا قبضنا وقت كذا وحي لقادن جرتي ويل كذا مرة وحسوي بيسو مرة يقول لك الجوكتو مرة عيار سيسو مرة تماشات جيسو مرة يعني وحي هيد هو ويل كذا أعدو تشحل فرحة إن بعادي هنا ينسي جرتي
haddaba haddaynu halkaasi kusoo xidhno filim matalaadeeda iyo howlaheeda gaarka iyo haddaba maanta muuqaalkan gudihiisa waxaynu awoodda saari doonaa dhimashadeedii iyo habkay u dhimatay oo ahayd runtii hab aad u la yaab badan shakiyo iyo hadal hayno far badanna dhalisay ilaa imikana arrinteeda marka lasoo qaado dadku aanay ka baxayn iyo madaxa qosho iyo yaab yacni waa dhacda gebigeedu mugdi ah aad u la yaab badan haddaba gabadhan ayaa sanadii 2020 bishii July 8 waqtigii jawiga adduunyada uu qasnaa dadka lagu dhiirigelin jiray inay xaroodaan ee corona ka yaacay warguriga ku xarooday war faraha iska dhaqayda lahayn jiray xilligaas ayaa haddaba gabadhaasi waxay go'aansatay inay ayada iyo wiilkeeda yari ay dalxiis u baxaan isla mar ahaantaana ay tagaan meel bad ah haddaba meeshani bad caadi ah oo dee badiyan u garanayni maaha waxay ku taalaa meel kamid ah buuraha California waa adigu haro gacan ku sameeyay la oran karaa waa biyo meel kale laga soo qaaday oo halkaas lagu shubay haddaba badan yar ayaa dadku waxay u yaqaanaan badii nacdalaysnayd Oh my god. nacdalaysnayd nice of Somali haddaba maxay tahay sababta badan yar nacdasha loo raaciyay ee lagu tilmaamay inay nacdalan tahay qolyaha hoose miyay hooyo tahay ruuxaame iyo jimini iyo shiyadi miyaa lagu arkay seeb wuxuu jiraan maxaa sababtu waxay tahay dhacdooyin aad u la yaab badan ayaa ka dhacay gudaha baddaasi yar sababta ugu weyn ay dadku u nacdaleenna waxay tahay gudaha baddaasi yar dad aad u badan ayaa lagu waayay welibana hab la yaab leh ayaa loo waayay dadkaasi badankoodu waa kuwa dalxiis tagay qaar isku dayay inay dabaashaan deetana sidaas lagu waayay dadkaasi gudaha baddaasi yar lagu waayna badankooda midkooda waxa la helay 2 maalmood iyo wixii ka dambeeyay kadib qaarkoodna lamaba arago sidaasi ayaa lagu waayay haddaba taasi ayaa waxay keentay in boorar fara badan lagu dhajiyo wajhada baddaasi yar intaan la soo gelin ka hor digniino ayaa ku wada qoran sheegaya ha u dhawaanin ha gelin ha ku dabaalanin bal hadda qiyaasadka lagu waayay kaliya intii u dhaxaysay sanadii 1994 iyo 2001 ilaa 7 qof ayaa ku dhintay gudaha baddaasi yar kiyay sidaasi tahay ay dadku arkayaan dhibaatooyinka baddaasi yar laga soo sheegayo iyo halista ay leedahay ayay dadkii haddana weli ku sii qulqulayaan ay ku sii yaacayaan dadkii waaba loo sheegaya oo xalilay qormeeshan waa meel halis badan dad baa lagu waayay intaasi oo qof ayaa ku dhintay meydadkooda qaar xataa lamaba arag dadka qaar meelahaasi laga celceliyay ee la yidhi halis baa ku sii cararayaan marka gabadhanina ayadoo og halistaasi ku duugan gudaha baddaasi yar ogna qisooyinka halista badan ee laga soo waramay dadkii ku dhintay iyo waxaasi oo dhan ayay u dalxiis tagtay intay wiilkeeda yar gacanta qabsatay gaadhigeeda ka haysatay baddan yar waxa lagu magacaabay Peru haddaba dadka agaarkaasi ka dhow ee deegaankaasi degan gebi ahaantooduba kuma dhawaadaan meeshaasi kumana dabaashaan agteedana ma maraan sababtoo ah waxay og yihiin halista meeshaasi ku duugan oo waa meel dharar ahaan aad u dheer sidoo kalena gudaha biyahaasi waxaa ka baxay geedo aad u badan aad u dhaadheer taasi oo sabab u noqon karta qofkii inay haddii uu ku dhaadhaco ay lugahaas kaga duubaan ama se ay dhibaatooyin halkaas kasoo wajahaan marka dadka deegaankaasi ka dhow inkastoon la garanayn sababta rasmiga ah ay dadku ugu dhintaan gudaha biyahaasi haddana dadka deegaankaasi ka dhow aad ay uga baqaan kuma dhawaadaan hase ahaatee dadka meelaha fogfog ee caasimadaha ka yimaada ayaase u socdaan bay isku shubaan saacdeetana bila la baafiyaa oo la raadiyaa oo la waayaa ama bila kadib ayaa meedadkooda la helaa muxuu tarayaa meed la helay haddaba haddaynu soo laabano dhanka iyo gabadhii Naya siday hooyadeed sheegayso waxay ahayd gabadh dhinaca dabaasha aad ugu wanaagsanayd ilaa yaraanteedii ayay dabaalan jirtay oo dadkani reer galbeedku way naga horumarsan yihiin oo xaafad kasta barkada ayaa ku taalay dabaasha isaga barbartaan marka gabadh ilaa yaraanteedii dabaasha taqaanay aad ugu fiican ayay ahayd sidoo kalena barkadaha oo kale kuma dabaalin jirin meelaha badaha kale ay tagi jirtay xataa si fiican ayaan u kala taqaanay xilliyada dabaasha ku haboon iyo xilliyada ku haboonayn xilliyada ay dabayluhu jiraan xilliyada dhibaatooyin qofku kala kulmi karo waxaasi oo dhan aqoon buuxda ayay u lahayd umana malaynayo ayay tiri garaadkeedu inuu siinayo barkadaasi nafteeda ay u quurayso kaliya dadku badanaa waxay u tagaan on daawasho iyo inay hareerahaasi socdaan iyo inay haddii ugu bataan ay doomay waxaasi furfuulaan laakiin waa la iska ilaaliyaa in lagu dhaadhaco lagu dabaasho marka waxay leedahay Naya waaba sii garanaysa meeshan inay tahay meel aad u halis badan horena way u ogeyd haddaba July 2020 ayay ugu dambeyn Naya gaadhay badda yaray haddaba markii badda yar sidaasi u gaadhay ee gaadhigeedii ka soo degtay ayay wiilkeedii gacanta qabsatay isla mar ahaantaana waxay toos u abaartay dhanka iyo baddi sahay ayay sidatay oo waxay ahayd gabadh u diyaarsanayd inay badda yara gasho oo ay dooni iyo wax kareysato hadhowna markay soo dalxiisaan oo ay doonida raacaan oo ay soo laabtaan hilib iyo wax yar siteen inay karsadaan ay
iyadii wiilkeedu ay halkaasi waqti ku wada qaataan maadaama lagu jiray xilli corona oo inta badan guriga lagu xaraysnaa waxay doonaysay inay waqti fiican ay halkaasi kusoo qaadato haddaba markii abaartay badda yarayd isla mar ahaantaana ay damacday inay kiraysato dooni yar ayaa ninkii agaarkaasi mas-uulka ahaa ee doonidii waxaas dadka kareynayay waxa uu ka codsaday inay xidhato jaakeedka badbaadada xilliga dabaasha hase ahaatee naaya ayaa ka diiday oo ku tidhi anigu dabaal uma socdo maxaan ku falaa jaakeedkan uma baahni keliya doontaasana yara raacaynaa jawigeena soo war qaadanaynaa khalaas waxaan uga baahanahay jaakeedkii deetana waxaa ku yidhi laazim waa muhiim waa laga maarmaan waa sharci yaala qof waliba oo meeshan yimaada oo isku daya inuu dooni iyo waxaasi raaco marba haddii aad kormarisid biyahaasi waanaad jaakeedka xidhatid ugu dambeyn markii uu ninkii ku khasbay ay aragtay inay waxaan laga maarmaan yahay way qaatay way xidhatay sidii ayaanay ku fuuleen ayada iyo wiilkeedu doonidii haddaba markii ay doonidaasi yara ka haysatay ay badda gashay ayaa aragti ugu dambeysay in la arko naaya intaas kadib hadda maxaa dhacay saacado badan kadib markii ay gabadhii iyo wiilkeedii yaraa ay soo noqon weyday ayaa waalidiinteedii u warwareen telefoonkeedii ayay garaaceen hase ahaatee waa ay ka qaban weyday arrintaasi oo waalidiinteeda siba hooyadeed warwar fara badan ku abuurtay maadaama ay meeshani halisteeda sii ogeyd isla mar ahaantaana ay u sheegtay ayada iyo wiilkeeda Khuse inay rabaan inay meeshaasi aadaan in muddo ayay sugtay telefoonkii ayay ku celisay hase ahaatee gabadhii ayad ahayd teleefankii maba qabanayso waqtigii waxa isku raba xilli dambe ay noqotay habeen ayaabay noqotay haddaba markii ay gabadhii telefoonka ay ka qaban weyday hooyadeed saacado badan ay ka soo wareegeen habeen ay noqotay go'aan waxay ku gaadhay hooyadeed inay toos u abaarto xafiiskii ay ku sugnaayeen ilaaladii baddahaasi deetana waxay u sheegtay in gabadheedii aanay wax wara ka haynin ayadoo saaka subaxii soo baxday ilaa waqti xaadirkana aanay war ka haynin markiiba waxa la bilaabay baadhid isla markiiba kaamirada markii la fiiriyay waxa la arkay in naaya ay gaadhigeedii ay meesha dhigtay isla mar ahaantaana ay iyadii wiilkeedu ay sidaasi badda ku galeen ay dooni raaceen hase ahaatee weli gaadhigii meeshii ayuu yaallaa taasi ay micnaheedu tahay dib umaana soo noqon oo gaadhigii markii ay sii gelisay siday u dhigtay ayuu u yaalay intaasi kadib baadhitaankii ayaa la gudagalay in la raadiyo waqti badan maanay qaadan in la helo hase ahaatee maxaa la helay waxaa la helay wiilkeedii yaraa ee Khuse ee meelahaasi shanjirka ahaa ay alaab yaraysiteen iyo ay dhikaarkeedii hase ahaatee ayadii lama hayo wiilkii yaraa markii la wareystay waxa uu hadal ku soo koobay hooyaday way ila joogtay sa ay la socotay ayuu man hal mar waayay hase ahaatee muddo kadib markii ayeydii u sheekeeyay ayeydii si tartiib uga wareysatay waxa uu sheegay in asaga iyo hooyadii ay gudaha badda si xoogay doonida ku yar dhaxso socdeen isla mar ahaantaana ay cidhifka uga baxeen waqti ay yara wada qaateen ay cuntooyin wax yara cuneen deetana dib ayaan hadana doontii u soo fuulay hase ahaatee markii ay qaaday ay doontii fuushisay in yar kadib markii aan dib u soo fiiriyay hooyaday mabaan aragba jaan iyo cidhib meel dhigtay hooyaday waxa uu leeyahay kan yari xataa cod maanan maqal xataa sanqadh iyo boodood iyo buuq maanan maqal oo xataa haddii biyaha ay ku dhex dhici lahayd sanqadh fara badan ay samayn lahayd amaba si ay dhibaato soo gaari lahayd dee waan maqli lahaa balse waxa uu leeyahay hal mar unbaan aragtideeda waayaba meel allaaliya meelay martay hareerahan fiiriye dhinacanba fiiriye wax sanqadhinaya wax dhaqaaqaya wax buuqaya midna maana arag arrintaasay ku kaliftay wiilkii yaraa inuu halkii uun iska saarnaado oo kusii sugo hooyadii intaay soo laabanaysaba haddaba arrinta gabadhii yarayd ayaa hooyadeed laga waraystay nolosheedii iyo sida ahayd wax warwara iyo wax noocaasi nolosheeda ku furnaa wax mashaakil miyay jireen waxay ugu jawaabtay maana jirin deetna waxa la yiri waxa laga yaabay u badan tahay maadaama gabadhii la waayay in maadaama jawiga xumaayo dabayl iyo wax iska jireen in biyihii ay ku dhacday deetna ay baddaasi gudaheeda aad u dheereeyay salka gashay hase ahaatee hooyadeed waxay ugu jawaabtay xataa hadiiba ay dhici lahayd inay ku dhacdo biyahaasi gabadheedu dabaasha aad ay u taqaanaa way ka badbaadi lahayd way ka dabaalan lahayd oo ugu yaraan meel ba qabsan lahayd oo ka badbaadi lahayd waa talabaada gabadheedu arrinta meeshaasi qisadeeda waabay ogeydba oo caqliyadeedu si mayso inay biyahaasi isku qulto isku tuurto dadka qaar ayaa isweydiiyey sababta ay iyada iyo wiilkeedaba ay u diidanayd markii hore inay xidhato jaakeedka badbaadada maxay ahayd ID kaarkeeda maxay banaanka u dhigtay danta ay ka lahayd maxay ahayd malaha waa macquul inay ugu tala gashay inay istisho maadaama ay biyihii yara galeen haddana ay wiilkeedii inta qaaday ay doonta saartay ay ayadiina biyaha ay ku hadhay marka waxaa laga yaabaa inay markii hore ku tala jirtay ayadiiyo wiilkeeduba inay halkaasi ku dhintaan hase ahaatee haddana markii dambe aragtideeda bedeshay wiilkeedii ay doonta fuushishay ayadna sidii isku dishay haddaba arrintaasi waxaa burinaysaa
gabadhani sida ka muuqatay waxay ahayd gabadh diyaarsanayd oo u diyaarsanayd dalxiis kaliya cuntooyin ay siteen cuntooyin hilib aan la karin caydiin oo ay ku tala jirtay inay halkaasi ku sameystaan alaabo fara badan ayay sidatay taasi oo muujinaysa inay gabadhani dalxiis u socotay haddaba su'aalahaasi la isweydiiyey gebigoodaba wax jawaab ah looma hayo haddaba gabadhii naara ahayd waxa la raadiyeyba ugu dambeyn 5 maalmood kadib raadinteedii ayaa meydkeeda la helay 5 maalmood oo gudaha baddaasi aad looga raadinayay kor iyo hoosba cidif ilaa meelahaas oo dhan laga raadiyay ayaa ugu dambeyn waxa laga helay gudaha baddaasi ayada oo meyd ah oo ku dhex jirta haddaba meydkeedii markii loo fiirsadayna waxa ka muuqatay inay gacmaha kor u taagaysay markii ay naftu ka baxaysay sida sidii inay badbaado dalbanayso oo ay badbaadiya leedahay gacmaha kor u taagayso kale amba si kale haddii loo fiiriyana xaaladeedu waxay u ekayd in gabadhani lugaha laga hayay oo hoos loo jiidayay ayadna ay gacmaha kor u taagaysay oo leedahay badbaadiya wax aan la garanayna oo lugaha xagga hoose intuu ka qabtay uu biyaha hoos ugu riixayay oo kale marka ilaaladii meeshaasina waxay xaqiijiyeen arrinteeda markii ay u fiirsadeen inaanay gabadhani haba yaraatee ugu talagalan inay isdisho oo xaaladeedu ay u muuqatay mid shil ah markii la qiyaasay waxa la yidhi wiilkeedu waa u hurtay oo xataa markii loo degay wiilka yar meesha ayuu iska hurtay haddaba markii khubaradu dhacda gabadhani ay aad u rorogeen aad ugu fiirsadeen waxay qiyaaseen in ayaga oo biyaha xoogay yani meelahaas lugahay meelahaas kula jiro oo agagaarkaasi jooga isla mar ahaantaana wiilkeeduna uu hurday ay gabadhii wax lugaha ka qabteen ay biyaha kusii riixeen deetana ay la herdantay sidii ay waxaasi isaga badbaadin lahayd amaba si waxaas biyaha kusii riixaya ay isaga badbaadin lahayd keliyana ay awooday inay wiilkeeda ay badbaadsato oo intii aan biyaha wada gelin ay wiilkeeda ay meel saartay deetana sidaasi ay waxay ku sii riixdeen ay ku nafweyday gudaha biyahaasi haddaba dhacdooyin aad u tiro badan oo noocaasi ah ayaa gudaha baddaasi Peru laga soo sheegaa badanaana dadka gudaha biyahaasi ku dhintay waxay u badan yihiin dad aan u diyaarsanayn badda baal dad iska booqday uuna agaarkaasi iska soo socday oo yani go'aankoodu aan ahaynba inay ku dabaashaan ayaa ugu badan dadka gudaha biyahaasi lagu waayay qaarkoodna raadin dheer kadib waa la helaa qaarkoodna lamaba helaba dhacdooyinka gudaha biyahaasi ka dhacana waxay u badan yihiin dhacdooyin wada noocaasi yani sida gabadhaasi oo kale isla markii hadleen ilaaladii baddaasi markiiba waxaa lagu tilmaamay arrinta gabadhaasi shil ka dhacay gudaha baddaasi sidaas ayaa qadiyadeedii lagu soo xidhay ilaa haatanna waxa ka jira gudaha baddaasi yar ee dadka sidaasi oo dhan u baabiinaya lama hayo dadkiina lagama celin karayo oo warka joogadaas la hayaa kamana joogayaan oo dadkii sidaas ay ugu soo qulqulayaan kaliya waxa kaliya la awooday maadaama dadka aan la hor istaagi karayn in agaarka baddaasi iyo meelaha ay dadku soo galayaan boorar digniina lagu qoro si dadka looga digo inay gudaha baddaasi ugu dhacaan okay haddaba saaxiibayaal dhacdadani halkaasi ayay inoogu eg tahay haddaba inta yare muuqaalkeenan ka dhiman waxaan rabaa inaan si gaara ugula hadlo gabdhaha waa fariin iyo bishaaro gaar ah oo ku socota gabdhaha sidaad u jeedaan gabadhani waa gabadh youtuberad ah waxay inta badan awoodda saartaa arrimaha dhinaca gabdhaha isqurxinta make-upka adduunyada iyo xataa waxay ka warantaa dhacdooyin qisooyin sida anigoo kale ayadoo make-up iska marsanaysa marka muuqaaladeeduna maasha Allah aad ay wacan yihiin harjeenayaan aad uga heli doontaan sidoo kale make-up-yada iyo waxyaabahan ay sharaxayso ayada laftirkeeda ayaabad ka helaysaan oo meesha joogtaan idinku keeni karayso idinka iibinaysa marka magaca kanaalkaasi waxaa ku qoran tuha also kasta ahaatee descriptionka ayaan linkiga kanaalkaasi idin dhigayaa fadlan kanaalkaasi booqda subscribe u saara lana socda muuqaaladeeda intaas ayaan jeclaystay inaan kasii dabageeyo fadlan muuqaalkana like-ta sii saara ballanteenu waa in ooyo muuqaalka xiga haddii uu ilaahay caafimaad inuu gaarsiiyo imkii haatan waxaan ka tegayaa sidaas iyo ammaano Allah